السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة قالي وسودوادا كسودوادا مركلي يا أكاديمية بولشو حرجينا أنا دمانتي مدعافات قبتين وحان كسو جرني 10 كيني أما قيبتي اللبات هيت وورد بروسيسين أما مايكروسوفت أوفيس وورد 10 كان maanta haduu ilaa yiraahdo waxa uu ku saabsanaan doonaa customizing tagastiga qaabka wax looga bedelo hadii aan leed fontiga size-keeda color-keeda iyo style-keedaba sidoo kalena sida farta capital-keeda ama waaweyn looga dhigo ama yaryar looga dhigo bullets iyo numbers waxa la dhaho ayaan isticmaali doonaa ugu dambeyn waxaan sameyn doonaa haduu ilaa yiraahdo qaabka loo abuuro isla markaana bookmark gooni ah loo aado ama loo delete gareeyo haddaba ku soo dhawaada muuqaalka السنة وناكسن مقعي وعفتح حسين عفتح بلشو فضلنا دي تامرك كوريس أنو صبوقتي برت أن كلنا فيسبوك يوتيوب كا بلشو أكاديمي هاي لو بينا سبسكرايباتي جنرالك هدي قيبت فيسبوك أنا قد داوني سنة سيدو كل لو فولو غري وفيليا مقال كان سيدو كل شير غري إسلامر كان لايك سار si ay nagu noqoto dhiirigelin waad maasantiin aan sii guda galna 10 keena ugu horeyso waxaan rabnaa inaan sameeyno customizing tagasti sida customizing tagasti sameeyno waxaan tagaynaa horta qaybtan waxaan ku qoraynaa word ayaan ku qori doonaa waxaan soo kicin doonaa Microsoft Office Word 2010 keena ayaan soo kicin doonaa halka markaa joogno tusaale ahaan waxaan rabtaa inaan wax qortid waxaan ka soo qaadanaynaa inaan wax badan aan soo qornay tagastigan ayaan waxaan rabaa inaan wax ka bedelo sida wax uga bedelayaa marka ugu horeyso waxaan rabaa horta inaan tagastigan aan ka dhigo color-keeda ama bold aan ka dhigo ama khafiif aan ka dhigo kulli horta waan dooranayaa marka koobaad kadib waxaan sameynayaa farta waxaan leeyahay bold ka dhig farta u jeedid far dhumac leh oo weyn ayay noqotay okay sidoo kale waxaa sameyn kartaa haddana inaa farti aad ka qaadid oo aad ka dhigtid far maxaa la jiray regular ama aanan bold ahayn qaybtan ayaa tagi doontaa marka dooratid kadib waxaa leedahay ka qaad boldiga si u jeedo hadda farteena waa far iska caadi ah sidoo kale waxaa sameyn kartaa italic ayaa ka dhigi kartaa oo farti waa jijiifi kartaa waa dooranaysaa marka hore kadibna waxaa sameynaysaa italic ayaa ka dhigaysaa fartii waa ay jijiifatay sidoo kale iyadoo kuu dooran ayaa waxaa sameyn kartaa si uga qaadi mar kale italic ayaa taabanaysaa waadna ka qaadaysaa okay haddii kale waxaa sameyn kartaa underline ku samaysid oo hadda intaan ayaan rabaa inaan underline ka dhigo ama aan xariiq hoos u yeelo waxaa sameynayaa calaamadaas underline-ka ay ku qoran tahay marka horeysa laakiin waa inaad doorto kadibna waxaan tagayaa calaamadan underline-ka ay ku qoran tahay soo ujeeda hadda wuxuu sameeyay underline oo ah uu xariiqay oo xariiq ayuu hoos ka mariyay okay haddii aan rabo inaan ka qaado mar kale waa dooranayaa kadibna waxaan tagayaa calaamada underline-ka kadibna waan ka qaaday okay intaas marka intaas aad samaysid sidoo kale waxaa sameyn kartaa in aad fartaani color-keeda aad bedeshid amaba haddii ay farta waaweynta oo kale inay yaryaraysid si aan farta haddii waaweynta aan u yaryaray ama u weyneeyo waa dooranayaa kadibna waxaan sameynayaa waxaan furayaa qaybtan ee ujeedid ay ku qoran tahay font janji case inta fur kadibna waxaa dhahdaa upper case farta ujeedid hadda far waaweyn ah oo upper case ayay noqotay okay haddana sidoo kale waan dooranayaa kadibna waxaan sameynayaa meeshii ayaan ku laabanayaa kadibna waxaan leeyahay lower case ka dhig farta hadda way isbedeli doontaa halka ay la fiiri hadda fartii far yaryar ah oo macnaha maxaa la jiray case-keeda uu yaryar yahay oo weyn ahayn ayay noqotay haddii aad aragtid sidoo kale inaad fartaani aad color-ka ka bedeshid waxaa sameyn kartaa dooro kadibna qaybtan ay ku qoran tahay colorska tag ama font color-keena hadda waxay noqotay guduud haddii aad aragtid inaad color kale aad ka dhigtid sidoo kale waa dooran kartaa kadibna meeshaan yarta oo filaarta ayaa furi kartaa kadibna waxaad siin kartaa color-ka markaas aad rabtid okay sidoo kale waxaa sameyn kartaa meeshii ay ku celi kartaa black ayaa ka dhigaynaa waa doorananaa farta dhan kadibna waxaan furaynaa qaybtan yarta oo filaarta ah kadibna black ayaa ka dhigi doonaa okay hadda farteeda waa black sidoo kale waxaan rabaa fartaan inaan bedelo tusaale ahaan hadda waxaan rabaa inaan dhaho barashada okay farta aan rabaa inaan dhaho intaana waxaan rabaa bis inaan ka dhigo ama aan bedelo qaybtan waxaa imaanayaa farta noocay noqonayso heading ayaa ka dhigi rabaa haddaan kelig dhaho farta saasay u weyneyn kartaa heading 2 haddaan ka rabo qaabkaasay noqon kartaa haddaan rabo inaan ka dhigo normal saasay noqonaysaa tanay lamid noqonaysaa haddaan waxaan rabaa inaan dhaho heading 1 waa ciwaanka koobaad color-kana waa bedeli kartaa inta ayaad balaa ka dhigan kartaa okay haddaan kale wax kala ka dhigan kartaa waxaa sameysan kartaa noocaasa ka dhigan kartaa sidoo kale waxaa jirto haddaa qaybtan dooratid qaybtan haddaa furtid ay ku qoran tahay highlight tagastiga ayaa furi kartaa color-ka aad rabtidna waa aad siin kartaa iyadana okay kaas ayaan siinaa anaga hadda okay intaas markaa sameysid qaybta fontiga halkaas ayaa sameyn kartaa haddaad farta inaad ku dartid cabirkeeda waad dooranaysaa
kadibna waxaad tegaysaa qaybtan cabirada ayaa tegaysaa kadibna waad weyneyn kartaa. haddii arti fartan hadda Times New Roman ayaa noo saaran, haddii arti inaad bedesho sidoo kale waad dooranaysaa. kadibna meeshaan ayaad furaysaa falaarta ah, kadibna farta aan raba Arial Calibri ayaan ka dooranayaa. kadibna okay ayaan leeyahay. haddaan farta ciwaanka aan raba inaan weyneeyo ayadana dooro. kadibna hadda 14 waa cabirkeeda qaybtan fur, kadibna waxaa dhahdaa 28 ama 24 mid kaarta ka dhig. intaas waa inaad farta kalarkeeda iyo stylekeeda iyo waxyaabaheeda aad bedeshid. waxaan rabaa sidoo kale farta inaad bullets u yeelo oo lambara aan u yeelo. okay, waxaad samayn kartaa laba mid ayaa samayn kartaa. haddii aad hadartid inaad bilowdidna qaybtaan markaad tagtid oo halkaan aad joogtid ayaa waxaad samayn kartaa, waxaad tegaysaa qaybtaan ay ku qoran tahay bulletska. inta ayaa furaysaa, bulletyo kala duwan ayaa meeshaan ku jiro, nooc aad rabtid ayaa ka dooran kartaa. okay, ani kanaan raba hadda inaad doorto. kadibna waxaan leeyahay kusoo dhawow barashada Microsoft Word ayaan dhahay. kadibna intaraan dhahay, mar kale wuxuu i abuurayaa point kale. okay, maye haddii aan ayada aysan ay tahay waxaan rabaa inaan intaan dhanba aan bullets u yeelo. waad dooranaysaa, kadibna waxay tegaysaa qaybtan bulletska, kadibna bulletska aan rabo ayaa u yeelayaa. okay, soo ujeeda hadda bulletska page kasta meesha uu ka bilaabanayo oo bullet uu yeelay. haddii kale waa dooran karaa, waxaan samayn karaa in aan halkaan furo haddana ama qaybtan kale aan furo, kadibna aan ka dhigo nambaro. hadda nambaro ayuu ii noqday oo hadda waa kaasaa. oo hadda marka halkaan tago inter haddaan dhaho lambar 7 ayuu isii abuurayaa. haddaan wax qoro lambar 8 ayuu isii abuurayaa. saas waaye, ma garat. ayadana qaybtaasi waa qaybta fontiga iyo kalaradeeda, sizekeeda, cabiradeeda, fonti styleka ama fontiga macnaha casekeeda, iyo sidoo kale waxaan kusoo qaadanay bulletska iyo nambarada. intaas aan mid iskaga gudubno. sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago bookmark. waxa la dhahaa bookmark waxaa waaye in qayb kamid ah documentigaada aad calaamadeysid, kadibna aad hadhow si u xasuusatid aad macnaha maxaa dhihi jiray kagala soo saaran kartid page dhan ama book dhan oo aad qortay aad qayb kaga soo saaran kartid. anaad intaan ayaan rabaa inaan macnaha maxaa dhihi jiray aan hadhow buuggeyga kasoo saaro. markaan rabo waan dooranayaa, kadibna waxaan tegayaa insert, kadibna waxaan leeyahay bookmark. bookmarkaan tahay halkan waxaan ku qorayaa references aan leeyahay tusaale ahaan. okay, markaan dhaho kadibna ciitan name ayaan ku qorayaa, kadibna waxaan leeyahay add. okay, mid kale se usoo sameeya haddana inta imaanaya waxaan leeyahay review ayaan calaamadeystay. kadibna waxaan tegi doonaa bookmark, kadibna waxaan leeyahay review. okay, markaa intaas sameeyo kadibna add ayaan dhihi doonaa. hadda haddii aan halkaan tago, haddii aan bookmark tago waxaan haystaa 2 bookmark oo ah reference iyo review. haddaan mid kamid aan kili ku dhaho waa kana referencega, waa kana halkaan intaa dhan ayaa calaamadeysan. haddaan review aan dhahane haddana waa kana reviewga intaa ayuu calaamadeeyay. waan rajeynayaa wax badan inaan ka faa'iiday cashirkan. haddii aan rabo marka inaan tiro sidoo kale isaan ku tirayaa, waxaan tegayaa insertiga, kadibna waxaan tegayaa bookmark, kadibna waxaan ka dooranayaa review, kadibna waxaan leeyahay delete, kadibna haddana kan aan dooranayaa, kadibna waxaan leeyahay delete, kadibna waxaan leeyahay close. saas ayaa hadda ku tiray oo hadda halkaan tago wax bookmarka meeshaan ma igu jiraan. waxaan rajeynayaa inaan cashirkeena wax badan ka faa'iiday. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii 3aad ee word processingka ama Microsoft Word 2010. tan inta kulmi doona cashiradeena xiga waa aniga Cabdi Xuseen Cabdi Bulsho oo idinku dhaafaya nabadiino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.